kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ku joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Itoobiya aynu ka helayno. Dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda Itoobiya iyo xogaga ka soo horjeeda ayaa maalintii saddexaad ka socda waqooyiga gobolka Wollo iyo sidoo kale deegaano hor leh gudaha deegaanka Axmaarada. Wararka aynu ka helayno deegaanka Axmaarada ayaa ku soo waramaya in dagaaladu ay aad u culus yihiin. TPLF oo si kulul ugu jawaabtay digniinta Mareykanka. Afhayeen u hadlay mucaaradka TPLF ayaa sheegay in digniinta uu soo jeediyay Mareykanka mucaaradka ay tahay waxaan la aqbali karin, gaar ahaan isku daygooda la xiriira dhanka galista caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Getachew Reda ayaa ku tilmaamay digniinta Mareykanka ka timid mid waxba kama jiraan ah. Bishiina dhaaftay ee Oktoobar, jabhadda TPLF ayaa qabsatay magaalooyinka Kombolcha iyo Dise oo ku yaala waqooyiga galbeed ee gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya. Sidoo kale waxa ay qabsadeen TPLF waddo weyn oo halbowle ah taasoo gobolka Tigray ku xireysa magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, iyadoo taasi sare u qaaday suurtagalnimada ay TPLF ku gali karto magaalada Addis Ababa. Getachew Reda ayaa ku tilmaamay wax lagu qoslo digniinta iyo hadallada ka soo yeeraya Mareykanka. Wuxuu intaa ku daray afhayeenku in Mareykanku aanay dooneynin in TPLF ay galaan magaalada Addis Ababa. Dhanka kale, xadka Suudaan iyo Itoobiya waxaa ka socda dhaqdhaqaaq military oo ay wadaan ciidamada dalka Suudaan. Suudaan ayaa shaacisay inay xidhay gebi ahaanba xadka xuduudda ay la leedahay Itoobiya. Labada dal waxay ku muransan yihiin lahaanshaha dhul ballaadhan oo Itoobiya muddo dheer haysatay. Sidoo kale Suudaan iyo Itoobiya waxay si weyn ugu muransan yihiin biyo xidheenka webiga River Nile. Suudaan ayaa u aragta inay jilicsan tahay Itoobiya oo ay xilligan ka faa'iideysan karto. Shirka uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage oo ka furmay Djibouti. Magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta waxaa ka furmay shir uu soo qaban qaabiyay macadka cilmi baarista ee Heritage. Waxaa shirka madashani looga doodayaa xasilooni darrada ka jirta guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Professor Afyare Cilmi oo ah agaasimaha macadka Heritage ayaa sheegay in macadku doorkiisu yahay in aqoon-yahanada loo fududeeyo madal ay ku doodaan laakiin aanay iyagu gaarin go'aamo. Macadka ayaa sanad waliba qabta shirkani inkastoo waxyaabaha lagu falanqeeyo aanan dib loo sii dabagelin. Waxaa ka qayb galaya shirka marti kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamuud Cumar. Sidoo kale shirka waxaa qayb ka ah wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya oo iyagana shirka lagu marti qaaday.